mushkiladan xal wad u helaysaa soo maaha istaji baan ku idhi adigu caakifkii baan la hadlay imika wuxuu waxba ma helin sidee macnaha gaadhiga wax kale kuma jirin cunto mooye markaa shaqadeennu 100% calashaan waa nadiif baan ku odhan karaa hashmat sidaa awgeed ayuu taliya aslaan u iman waayey si aan aniga su'aaliyo weydiin mudane jihaan adigu aad baad u faraxsantahay waayo waxay soo gaadhay war farxad leh annaguna war baan ku haynaa adiga ma garanayno in farxaddeedii in kale oo muxuu yahay warkaasi dee hambaliya imka guri cusub baad kiraysatee beednaarna alaabtii la dhigi lahaayoo dhan bay ku iibisay dee waa gurigaad adigii jacaylkaagu sii diyaarsateen soo maaha oo soodigi lahaa labadeedu waxba nagama dhexeeyaan oo isma jeclin xataa haa aniga ayaa sidaa kugu yidhi waana run haya gurigaana wax ka dhabal oo gurigaaga markaa alaabta maxay ugu soo iibinaysay miinaar oo haye haa run ahaantii binaar marxuumaddaasi waxay ahayd qof aad u wanaagsan ciyaalkayga oo keliyana waxba umay dhigi jirin ciyaallo badan oo kale ay waxbari jirtay ayaa jira oo haye mar ayay herdadooda mid ka mida gurigiisa tagtay waxaan fiicnayna way kala kulantay macnaha qof ka mida qoyska ayaa isku dayay in waxyeeleeya iyada sidaa darteed ayaan guriga ugu soo korayay anigu intii ay guri kala tegi lahayd waxaan is idhi ciyaalkuna halkaa ugu tagaan si ay wax ugu bartay iyadu waa si wanaagsan oo masaasoo dhan buu qalbigaagu wen yahay adiga wallaahi dadkoo dhan boog inaan qalbi fiicanahay sanad walba anigu waxaan bixiyaa deeq waxbarasho miyaad qiyaasi kartaa tiradoodu intay tahay askari sidoo kalena boqolaal faqiirra ayaan anigu shaqo siiyaa idinkana waxaa idiin wanaagsan intayda fiicanna indhaha ku egtaana xumaantayda ha raadinina haye markaa maxaad noogu sheegi waday binaar inaad adigu guri u karaysa ii sheeg looma baahna ayaan is idhi midda kale ismaan lahayn macluumaadka way soo ogaanayaan waaba la yaaba sideeba ku soo hesheen bal hadday ii sheega saa ku soo hesheen